بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada reer bilan beauty meel kasta aad daafaca caalamka joogtiin. bilana marna la arkayo marna la weynayo waaye. marka bilan caawa waxay wadaa haddii ilaaha idmo waxna wada anfacaya dhammaan rag iyo dumarba. Ekfashinka wax daawo u ah oo jirka ekfashinka dhamaynaya hormoonadan isku dheelitiraya qof kasta oo bini aadana ilmaha yarka dhabarka lagu sida xataa ekfashinku waa iskaga dhacaa. Ekfashinku ma aha qof weyn kaliya inuu ku dhaco, qof kasta ku dhacaa, qof weyn aan qabin ba arkaysaa iyo qof yaroo qaba. marka alxamdulillaah intaas dhakhtar waa uga maarmi doontaa insha allah. waayo dhakhtarka haddaa u tagtid wuxuu ku soo siinaya daawo kugu qalajinaysa ekfashinka, laakiinse kan waa wax ekfashinka jirkaaga dhammaan ka dhaqaaya. waxaasna waa wax laba shay waa isla naqaanaa mase saddex shay intaa rabto waa ka dhigan kartaa. haddaa laba haysata labadaa ka dhigi kartaa, haddaa saddex haysatidna saddex shay waa ka dhigan kartaa. malabka waa lambar 1, lambar 2 waa caanaha garoorka, lambar 3 waa xabad rarshaad. mid walba hortiisa keligiis haddaa u isticmaashid ekfashin waa isdaynaysa. malabka oo kaliya ekfashinku wuu kaa dhaqayaa. xabad rarshaad kaliya haddaa isticmaashidna ekfashinku waa kaa dhaqayaa. haddaa isticmaasho caano kasta oo garoor ah ama xoolaheena ha laga liso mase waxaan kaleeto warshada soo maray ha noqoto caano garoor ah, dhammaantood ekfashin jirka way ka nadiifiyaan. anaa tijaabiye taas nafteeda ku barweeyay soo arkay. ekfashin dhiiggaa laga hela. markii laga helay wax kasta si kasta inta yeelay daawada cuna waa igu soo noqona ayaanti dambe ayaa dhakhtar wuxuu igu yiri caano garoor ah yogurt plain yogurt ma daa'iman kartaa. haa dirtooraan iri waxaan wada 21 beri 21 beri markaa wada ekfashin jirkayga waa laga waayay. hadda soo maahan saddexda shay oo mid walba horta ekfashinka u dhaqi jiray hormoonadana hagaajin jiray haddaan saddexda isku darsano soo kama sii fiicna. xabad rarshaad dadku waa ku dhibaatoodan waxay leeyihiin xabad rarshaad ma cabi karo kulaylka bay ka badatay kanay noqoto. xabad rarshaad marka koowaad ha isku dayanin inaa shiidin. haddii la shiido dadka waxba ma tarto. daawadeeda waa adoo aan shiidin oo mirmiraha qashinka unbaa ka haadinaysaa ka nadiifinaysaa bas waa koo. midda kaleete gabdhaha ha iska ilaalisheen waqtiga dhiigga 2 beri uu ka dhiman yahay. dhiigga oo ku dhici rabo 2 beri ka hartay yay isticmaalin. intay dhiigga qabaan yay isticmaalin. dadku inta badan waxay yiraahdeen dhiigga adoo qaba isticmaal jirkaaga waa nadiif garoobaya. waxaas ma ahan. gabadha iyadoo dhiigga 2 beri uga dhiman yahay isticmaasha mase dhiigga iyadoo qabta isticmaasha. dhiigga iyadoo yar ayuu ka tagayaa. marka xilliga caadada gabadha intay ku jirto ma isticmaali karto. markay ka qubaysatay isticmaali kartaa oo daahir tahay 1 beri xataa daahir ahaato maantaba daahirka markay noqoto waa isticmaali kartaa. marka arrin waa arrintaas. xabad rarshaad waa la wadi waayay kulayl mataqaana calooshay mudmudayso. kaartadii ugu macaaneed anaa soo tijaabiyey caanaha garoorka iyo malab iyo ayada ayaa isku daraysaa 10 daqiiqo mase 5 daqiiqo ayaa u kaadinaysaa. xabad rarshaad way asiidkoo kale ayay furfuraysaa. caani garoorka unbaa kuu dhadhamaya ayaga dhan kulaylkeedii iyo dhibkeedii iyo kuma dhadhamayo. midda kaleete subaxii markaa ku quraacatiin xataa haddaa magaalada shaqo leedahay oo subax caanaha garoorka iyo malab iyo xabad rarshaad isku darsatid xataa gaajoon mays. waa iyagaba sidoo waxay ku anfacayaan quraac caadi adoo soo cuno kale. waa quraac aan gaas lahayn oo dhibaato lahayn oo fudud. haddana waa soo qabsanaysa caano garoor haddaa midaas weyn xoogaa aad isticmaali kartid calooshaad ada yaqaana iyo haddaa wax iska reebi kartid. malabkaa ku darso qaadada xabad rarshaad ka isticmaalaysidna qaadadan yarta oo ha noqoto kafeyga taasoo kale ha noqoto. taas kafeyga oo kale ha noqoto iyo ka weynaan. xabad rarshaad taasaa ka isticmaalaysaa iyo kan haafkiis
kan haafkiis ayaa ka dhigaysaa. haddaa rabto qaadadaa sirtaa xabad dhan waa ku darsan kartaa. malabkana waxaan jeclahay aniga inaan ka dhigto qaadadaas labadeed, qaadada kafeyga labadeed baan ka dhiganayaa malabkana. marka asxaabey sidaas kugu darayno ila arka intaana u boodin isku darka. waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego gabdhaha hormoonada ka halaysan yihiin iyo wiilasha intaba, dhabar xanuunka dadka qaba caadada oo soo degdegta mase dib u dhacda qaba, dadka ugxanta daciifka ka tahay, waxaasoo dhan infection kaliya maahane daaway u tahay. lafa xanuunka daaway u tahay, tayroodka daaway u tahay. alxamdulilah ani tayrood waa qabi jiray, ilaahay baa iiga caafiyey oo iigu soo raray xabad irshaad iyo malab kaliya ahayd laakiin iyo qunzul hindi, kuwaas ilaahay iigu soo raray daawo. laakiinse anigu hadda waan fiicnaaday, dhan walba waa ka fiicnaaday. kaliya idinka aan rabaa in inkaga faa'iideeyo xabad irshaadka xalka loo waayay, xalka ugu dambeeya anaa u soo helay alxamdulilah. waxaan rajeynayaa inay ii soo ducaysiin gabadhii wada hadda 21 habeen mise 21 subax, haddii ugxan daciif ka ahayd, hadday ka ahayd hormoonkeeda oo isku dheelitirnayn, dhabar xanuun hadduu qofku qabay, waxaasoo dhan igu ogaada. haddana waa isku darsanaynaa, saa iskugu darsano ila arka. caanii garoorka wakaasaa waxaan ka dhiganayaa nus aduu kala bar, markay nuskii leeyihiin rubac camal baan ka dhigtay. allah mustacaan. xabad irshaadkiina waa halka qaado oo kafayga, waaba yaabi doontiin macaanka iyo adduunka isku noqonayaan. malabka aduu 2 qaado qiyaastii, qaadada waxba dari maayo laakiin 2 qaado oo kaleeta qiyaas insha allah. malabkuna saafi ha kuu noqdo, haddaada malabka xataa hayn barbala male, labada kale ku anfacaysa insha allah. mase waxaan sugaynaa aduu 5 daqiiqo ugu yaraan isku sugaynaa, kabacdi siday noqoto idinka yaabi doontiin. waaba quraac aan caadi ahayn baa meeshan ayaan ka helayba saxaabe, waad yaabi doontiin. gabar baan u sheegay ta kahor way isticmaashay caafimaadkii iyo dhawr caafimaadka ka heshay, ilaahay waa u xisaabnay. waxaan ku iri caafimaad bay ka heshay, waxay ka heshay maxaan ku irahaa aduu muraadka ay lahayd wuu badnaa, waa lafa xanuun, dhabar xanuun, awlaadda ilaah baa baxshay ayay raadinaysay. gabadhii way ku guulaysatay, uur bay yeelatay. ducada ugu weyn halkaas iga soo gaartay. marka kaniiniyaadkaan la leeyahay dhiigga markaa ka qubaysata isticmaala, ugxanta idin siyaadinaysa, waxa ay idin taraayaan way jiraan, laakiinse dhibaato idin gaarsiinayaan baa ka badan. tan hal cudur baa u isticmaalaysaa, waxaa laga yaabaa 10 cudur oo kaleeto ilaahay inuu kaaga caafiyo, caafimaadka rabbi baa haye. marka waxaan ku iri gabarey wiilow, intii wax raadinaysa iyo intaan wax raadinayna caafimaadku waa raadinaysa. inta dhabar xanuunkii lafa xanuunka qabta, inta markaas dadaalo jirku uu lafo xanuunaan shaqo yar markay qabtaanba waa idin daawo. faa'iidooyin badanna waad ka arki doontiin insha allah biidnillah. marka waxba video kala jari mayno, 5 daqiiqo waa iska dhadhowdahay. marka waxbana yana war inkugu daalin, idinka ila soo tijaabiya, idinkaa yaabi doontiina ila arka. kaliya ma ahan inaad ani been idin sheegayo walaalahay qaaliyaatiin, ani waa waxaan soo arkay caafimaadkooda. 5 daqiiqo hadda 3 daqiiqo 4 daqiiqo way tagtay, ani gadaal baan insha allah iskuma soo noqonayno, waan ka cunaya anigu meesha waa ka dhammaynayaa. hadda soo dhawaada ila cuna. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
video dhow maahan mid dheer waa laisku nacaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Reer Bilan Beauty waa idin jeclahay dhammaantiin. Ilaah idin sharfo. Asalaamu calaykum.